dhalinyaro Soomaaliya oo qaab maxbuus ahaan ugu xiran xabsi ku yaala dalka Ukraine ayaa waxa ay bilaabeen inay cunadii ka soomaan kadib markii in muddo ay qaab sharci darro ugu xiran yihiin dalkaasi Ukraine. Axmed Yuusuf Rabiile oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee in muddaba ku xirnaa dalkaasi Ukraine ayaa waxa uu iga waramay sababaha keentay inay soo xiraan ciidamada dalkaasi Ukraine. Ali maxaan ku xiranahay magaalada waddanka Ukraine magaalada Chernihiv. maxay tahay sababta lagu soo xiray? Ali sababta li soo xiray maxaa ana xadka gudubay rabo Slovakia waddanka Slovakia aan gal rabay xadka afkeeda laga soo qabtay saadaradeed ayaa la xiray laakiin dad kalena magaalada lagu soo arooriyay waa la xiray saadaradeed way noqotay meeshan xabsigan ayay nagu xiray. Sidoo kale Axmed ayaa ii sheegay in dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan ciidamada ilaalada xabsiyada ee dalkaasi Ukraine. Adiga ciidamada oo Ukraine laakiin saas ma noo fiicnay oo ay nagu shaqeeyaan barafka xarna banaanka guriga aan dhaqnaa la shaqo xumayno diraa hadda ku hore dil nagu soo biyeen laakiin maalin ka banaan baxnay hadda safcinaano dhaqmaan laakiin wali cunsurnimana way qabaan ku meeshan ugu xiray. dhalintaasi ku xiran dalkaasi Ukraine ayaa waxa ay baaq u direen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba safaaradaha Soomaalida ay ku leeyihiin qaaradda Yurub. Ma ahan Ukraine oo kaliya halka ay ku xiran yihiin dadka Soomaalida ah balse waxaa jira Soomaali fara badan oo raadinaya nolol ka duwan midii dalkooda hooyo oo haatan ku xiran dalal kala duwan oo ku yaala bariga Yurub sida dalalka Serbia, Ruushka, Georgia, Slovakia iyo Bulgaria. Cabdiqani Cali Dalmar raadiyaha kulmiye magaalada Geneva dalka Switzerland.